Algeria ama Aljazaa'ir waa waddan madax bannaan oo dhaca waqooyi galbeed qaaradda Afrika. Waxaan idinla wadaagi doonnaa macluumaad ku saabsan dalka lagu naanayso malyanka shahiid. Intaan u gudagelin, haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad kanaalka soo booqato, fadlan subscribe saar lana wadaag walaalaha kale. Algeria waa waddanka tobnaad ee ugu dhulka weyn dunida, waana dalka koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, iyadoo kolkii hore ay ahayd Suudaan, hase yeeshee sanadkii 2011 ay kala madax bannaanaadeen labada Suudaan. Sidoo kale Algeria waa dalka labaad ee ugu weyn dalalka Islaamka, maadaama ay Kazakhstan tahay dalka koowaad ee ugu dhulka weyn dowladaha Islaamka. Bedka uu ku fadhiyo Jazaa'ir waa in ka badan 2 milyan oo kiiloomitir isku weer ah, waxayna xuduud wadaag yihiin dalalka Mauritania, Mali, Niger, Libiya, Tunisia iyo Morocco, halka uu dhanka waqooyi ay ka xigto badda Mediterranean-ka. Nidaam xukunka dalkani ayaa ah jamhuuri. Caasimadda dalka waa Aljazaa'ir, waana halka uu asal ahaan ka yimid magaca Algeria. Gobollada Jamhuuriyadda Aljazaa'ir waa 48 gobol. Buurta ugu dheer dalkani waa buurta lagu magacaabo Tahad, dhererkeeduna waa 3003 mitir. Webiga ugu dheer ayaa ah Jalaf, ka oo dhererkiisu gaarayo 700 kiiloomitir. Calanka Algeria waa mid ka kooban 3 midab. Midabka cagaaran ayaa u taagan diinta Islaamka. Midabka gaduudanna waxa uu u astaysan yahay halgankii dhiigga ku daatay ee uu dalkaas soo maray, halka uu midabka caddaanku ka marakacayo nabadda. Lacagta dalkani waa Algerian dinar. Dhaqaalaha Algeria ayaa ku tiirsan batroolka, waxayna leeyihiin keedka gaaska dabiiciga ah ee ugu weyn caalamka, kaasoo ka dhigay inuu noqdo dalka ugu badan ee u dhoofiya gaaska dabiiciga qaaradda Yurub. Hase ahaatee, kolkii loo eego dhanka dhulka wax lagu beero ee tabcashada ah waa 3%. Sida guud Algeria ayaa ah 90% dhul qalalan ama dhul saxra ah. Tirakoobka dadka Algeriaanka ah ee lagu sameeyay sanadkan 2020 waxaa lagu sheegaa inay ku dhow yihiin 44 milyan. Dadka ugu badan ayaa deegaankooda ah dhanka waqooyi ee xeebta saaran, halka ay dhanka koonfureedna ku nool yihiin in ku dhow 1,600,000 oo qof. Dadka dalkani ku nool 90% waa Berber ama Masiixiyiin, waana dadka asaliga ah ee Algeria, halka ay inta soo hartay yihiin Carab iyo kuwa asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Yurub. Luqadda rasmiga ahi waa luqadda Carabiga iyo Berberka. Maciishada waddankani ayaa ah mid qaali ah marka loo eego dalalka kale ee ku yaal qaaradda Afrika. Qiyaasta guud ee shaqo la'aanta sanadkii 2011 waxay ahayd 10%, balse shaqo la'aantaasi ayuu saameyn ku yeeshay dhallinyarada oo ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 24 sano. Algeria waa dalka 26aad ee ugu awoodda badan ciidan ahaan dunida, waana dalka saddexaad ee Carabta ugu awoodda badan, halka marka loo fiiriyo qaaradda Afrika uu ka yahay dalka labaad ee ugu awoodda weyn. Jazaa'ir waxay xurnimada qaadatay sanadkii 1962, laga soo bilaabo sanadkii 1830 ilaa iyo sanadkii 1962, oo ku siman muddo 132 sano. Waxaa dalka haystay oo gumaysanayay waddanka Faransiiska, balse 1 milyan iyo bar reer Algeria ah oo u halgamayay xoreynta waddankooda ayaa u dhintay iyaga oo la dagaalamayay gumaystihii Faransiiska oo muddo dheer gumaysanayay waddanka Algeria. Waxa uuna la kulmay Faransiisku kacdoon aan kala joogsi lahayn. Faransiiska ayaa talagalkiisu ahaa in uu dalka Algeria ka dhigo gobol ka mid ah dalkiisa. Hase yeeshee, waxaa riyadaasi beeniyey, waxba kama jiraanna ka dhigay 2 wiil oo dhallinyaro ah oo ay ka soo bilaabatay xoreynta dalkooda, waana Cabdulxamiid ibnu Baadiis iyo Bashiir al-Ibraahimi. Mirihii ka dhashay labada halgame ee dhallinyarada ahaa waxa uu suura gashay inay beeniyaan riyadii gumaystihii Faransiiska ahayd in Algeria ay tahay gobol ka mid ah dalkiisa. Waxaa 1954 bilaabmay kacdoonkii lagu xoreynayay Jazaa'ir, taasoo kolkii dambe Algeria u dabaaldegtay xorriyaddii ay ka qaadatay Faransiisku 5 Juulaay 1962, waana markii la iclaamiyey madax bannaanida Algeria.
waxaana dhacday wakhtigaasi in ka badan 1 milyan oo qof oo reer Aljeeriya ah inay u dhintaan xoreynta dalkooda. Xulka Aljeeriya ayaa ka qayb noqday koobka adduunka muddo 4 jeer ah, sida oo kalena waxa ay haystaan 2 koob oo African Cup ah. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.